السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني محمد في الله ولالكينا أحمد إيو صولا وشو عصب marka inta qof oo igu xiran ama janaalkayga ku xirnaan jirtay ama ilaa hadda ku xiran 13,000 qof waxay ugu barteen inaan soo geliyo cashiro ku saabsan computer telefoon barnaamij aan sharxayo ama aan ka hadlayo inaan soo geliyo muuqaaladaas aan leegu bartay marka muddo dheer hadda muuqaaladii waan ka mashquulay youtube dhan waan ka fadhiistay iyo sidoo kale youtube kelima ah social media dhan waan ka fadhiistay facebook instagram iyo waxaas raacsan sababtoo ah mashquul adduunyo shaqo family ahaan iyo waxaas ayaan ku mashquulnay laakiin hadda insha Allah waan soo laabanay muuqaalo ka fiican ka duwan ka badan inaan soo geliyo ayaan isku dayaa insha Allah marka inta ila soo xiriireysay wax soo qoraysina aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin laakiin hadda insha Allah waa soo laabanay cashiradeyna meeshii aan ka wadanaynaa barnaamijyo cusub meeshii aan ka wadanaynaa marka insha Allah idinkan waxaan rabaa maadaama soo laabanay inaa لايك أبديسين iyo soo kale inaad share gareysiin videoga sida 13 qof aan hayno 13 kale aan ugu soo darno insha Allah waa soo laabanay maadaama soo laabanay insha Allah maanta waxaan sharxi doonaa ama waxaan ka hadli doonaa maadaama aan akhriyay kommentaar badan iyo risaalooyin badan la soo diray akhriyay risaalooyinku waxa ugu badnaa iyo kommentaarka sideen video ugu shaqeeyaa ama sideen video editing ugu sameeyaa maadaama arkay su'aashaas inay ugu badan tahay iyo sidoo kale YouTube sidaan u sameystaa taasna ay ugu badan tahay waxaan isku dayaa maanta iyo sidoo kale xalqad ama muuqaalkan ku xig inaan ka hadlo keli sida YouTube u sameysanaysaa iyo sida video u jarjaraysaa u hagaajinaysaa ma aha keli inaan ka hadlo laakiin waan isla sameeynaa from 0 to ilaan ka dhameyno adiga from A to Z inaan isla bilaawno sida YouTube u sameynaysaa inaa email sameysid YouTube ka gashid hagaagsid sameysid sawir saart YouTube-kii marka magacii u sameyso waxaan u sameys aad diyaaris waxa ku haray inaa muuqaal soo gelisid marka sidee muuqaal u duwaysaa marka muuqaalkii aad duubtid aad dhameystirtid sidee muuqaal u jarjaraysaa inaa barnaamij isticmaasha u baahan tahay muuqaalkii aad ku sameysid editing aad saartid music da saaris adiga quraan xataa hadaa saaris waxa adiga aad doonaysid iyo sidoo kale sidee qoraal uu qoraysaa magacaada title-kaada hadda sidaan oo kale inuu ku soo baxo magacayga waa Axmed oo ku soo qormaayo iyo channel-kayga magaciisa hadda website leedahay website-kaada aad saartid taasi ayaan isla arki doonaa ama isla baran doonaa marka muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay kali waa hordhacayo cashirka aan ka hadla doono marka maanta insha Allah waxaan arkaynaa YouTube horta sida loo sameeyaa haddaan taas ku sheego qof walba maanta telefoon wato telefoon Samsung Huawei ama telefoonada ku shaqeeyo systemka Android YouTube uu leeyahay so YouTube ku leeyahay hadaa adiga aad leedahay account ama xisaab ama email oo Gmail ah hadaa leedahay qof oo waxa tahay YouTube account leh sidee Google YouTube ay leedahay hadaa leedahay account Gmail waxa haysta adiga sidoo kale YouTube hadaa isticmaalaysa telefoon Samsung afwan automatic waxa haysataa YouTube hadaa isticmaalaysa telefoon Huawei ama wax ku shaqeynaya systemka Android automatically waxa haysataa adiga YouTube account waa haysataa laakiin waxa is arki doonaa insha Allah inaad sameysid email cusub marka emailka sameysid inaad YouTube account ka furtid marka ka furtid inaad YouTube-ka sawirka aad saartid sawirka aad ka bedeshid qoraal aad qortid waxaasi dhan ayaan soo koobi doonaa aan isla arki doonaa marka daawasho wacan marka insha Allah marka ugu horeyso waxaan sameynaynaa email aan sameysanaynaa sidaan YouTube u galno emailkan sameysanaynaa wuxuu ahaan doonaa insha Allah email oo sharikada Gmail leedahay Hotmail ajiro Yahoo ajiro email kala duwan ajiro ay ku dhamaanayso @hotmail.com @outlook.com marka waxa u baahan tahay @gmail.com sababtoo ah YouTube waxa leh Google waxay leedahay soo kale Gmail marka waxaan doonaynaa wax isku xiriirinay marka waxa u baahan tahay inaad sameysid email oo leh sharikada Gmail marka Google waxaan qoraynaa gmail.com intaan ku dhufaynaa marka page-kan ugu hore ay qoran tahay Google ama gmail.com ayaan galaynaa ama sidoo kale hadaan dib u soo laabto marka meeshaan joogo dhinaca midig waxa arkaysaa meel qoran tahay Gmail meesha ayaa ku dhufanaysaa waa isku midkii meesha hore iyo meeshaan good marka hoosaan usoo degaa hal mar luqadda kale ayaan bedelaa marka adiga page-kan kuu soo baxo waxaa taabanaysaa create an account dhinaca midigta u jeedid create an account ku dhufanaysaa kadib page-kan ayuu ku soo gudbinaa luqadda iyo bedel okay marka first name magaca hore ama magacaada aad ku qoraysaa meesha last name magaca aabahaada ama magaca jeceshahay hadaa naanays ku daraysid wax ku daraysid marka aniga waxaan qoraa baale
good emailkaada maxaa doonaysaa inuu noqdo isku day mar walba inaad ka dhigto emailkaada magacaada hore dhibic magacaada dambe for example ahaan axmed dhibic baale hadduu ogolaado waa okay hadduu diidana wax kale aan ku baroweynaynaa marka passwordka ama number siriga mar kale ku celi okay marka passwordka uu qoray halkaan aan arki karaa good passwordka marka mar walba ka qorays number siri isku day inuu ahaado number sirigaada oo koobnaado xaraf weyn xaraf yar number iyo soo kale calaamadooyinkan oo kale calaamadan oo su'aasha ama soo kale calaamahan oo ishaar istifhaam la dhahayo ama calaamadan aad in ay raacsanaadaan sababtoo ah emailkaada passwordkiisa ayuu xoojinaa marka hadda waxaan usii gudbaynaa next aan dhahaynaa waxaan fiirinaa emailkan ogolaanaya hadduu ogolaanaynin next passwordka okay marka password intaan aan ku daray halkaan kuma darin share test 1 good at next aan dhahaynaa marka saa ujeedeen emailka wuu ii diiday marka waxaan ayaa dooran kartaa haddaad doonaysid magacyadana dooranaysaa axmed baale 24 ama baale 5 haddaad doonaysid kuwaan waa ku dhufan kartaa waa dooran kartaa ama magaca halkan ka bedelaysaa marka aniga halkan meesha qoran tahay axmed baale 24@gmail.com waa okay kanaan doorana haddaan rabo marka waxaan dhahaa next marka hadda emailka caadi ahaan wuu qaatay hadda wuxuu ku weydiinaa number telephone inaad gelisid caadi ahaan badanaa ma ku weydiinaya number telephone inaad gelisid marka hore laakiin hadduu ku weydiiyo in number telephone gelisid numberkaada telefoonka gasho sababtoo ah waxay faa'iido u tahay number telefoonka hadduu emailkaada kaa dhumo kusoo ceshan kartaa sidoo kale telefoonkaada iyo emailkaada si toos ayay iskugu xirnaanayaan marka hadda kadib number telefoonkan gelina aniga كود marka number telefoonka angeli waxaan dhahaa keli next marka telefoonka waxa ku soo dhacayo SMS ayaa ku soo dhacayo SMS kaas oo ay ka horeyso xarafka jim kadib jiitmo ama ga jiitmo ayaa gelinaysaa numberka ku soo dhacay kadib waxaad dhahaysaa adiga inaa ogolaatay inaa saxday marka number telefoonkaada aad gelisid sidaan kugu soo baxaa marka caadi ahaan badanaa sidaan kugu soo baxaa number telefoonka hore kugu weydiinaya hadduu ku weydiin waa okay hadduu ku weydiinina sidaan kugu soo baxaa marka kadib waxaad dhahaysaa email oo ku soo ceshanaysid hadduu kaa dhumo emailkan ayaa meesha gashanaysaa emailkan gelinaynaa taariikhda dhalatay waxaan dhahaynaa 5 bisha aan doorano September ama October waxay ahaato waxaan dhahaynaa taariikhdan dhashay 1980 kadib waxaad dooranaysaa maxaa tahay wiil maa tahay ama gabar halkaan ka dooranaysaa ama wax kale waxaan dhahaynaa anaga wiil aan nahay kadib waxaan dhahaa next number telefoonkeyga information wuxuu weydiinaya anaga uma baahan waxaan dhahaa kaliya skip ka soco haddaad doonaysid yes waa dhaha kartaa waa ogolahay marka number telefoonkaada waxaas kusoo weydiinaa marka hoos usoo degaysaa kadib waxaad dhahaysaa waa ogolahay ama sax saaraysaa kadib waxaad dhahaysaa create account okay marka hadda caadi ahaan sidaan waxaa ku samaysatay email hadday calaamadan ku soo baxdo marka waxay xaqiijinaysaa inuu email hadda kuu samaysmay sidoo kale u jeedaa Google wuxuu ku dhahaa welcome ama ku soo dhawaaw kadib waxaan dhahaynaa next saan ugu sheegay email by Google marka waxaa adiga emailkan waxaa shaqaysiinayo ama waxaa leh sharikada Google okay sidoo kale markaa Gmail leedahay faa'iidooyin badan uu leeyahay Gmail haddaan halkaan imaan aan ku dhufano Google Apps waxaa arkaysaa barnaamijyo badan oo emailkan ku isticmaali kartid kamid ahaan Google Play oo markaa telefoon Android isticmaalaysid telefoon Samsung Huawei iyo telefoonnaas dhan waxaa u baahan tahay Google Play sidoo kale Gmail oo emailka ku isticmaalaysid kalendarka oo taariikhyo balamo ku save garaysanaysid Google Drive oo sawirahaada dokumentigaada waxaa dhan ku save garaysanaysid meel kale aadid waxaa la soo bixi kartid number telefoon sidoo kale ku save garayn kartaa sidoo kale wuxuu leeyahay meel sawiro lagu save garaynayo marka email samaysidna email walba wuxuu ku siinaa 15 gigabyte aad isticmaali kartid good marka anaga waxaasna hadda muhiim noo ah waxaa muhiim noo ah keli YouTube marka halkaan ku dhufanayna sidoo kale meesha aan taawanay Google Apps waxaan dooranaynaa YouTube
markaan YouTube doorno automatic YouTube ayuu isku furaa marka adiga waxaa dalbanaysaa halkaa meesha kuu qornaanayso hore u sii gal ama hore u sii soco signing dheh af German oo ahaa laakiin wax oo isbedelay ma aha meesha kaliya ku dhufanaysaa oo ah hore u sii gal emailkayga markaa gashid ama markaa meesha ku dhufat automatically emailka iyo password asaa hore u qaadanaya sababtoo ah emailkan waxaa ku isticmaalaysaa browserkan ama barnaamijkan ku isticmaalaysaa automatically wuu qaatay markaad halkan fiirin waxaad arkaysaa ay qoran tahay magacayga Axmed Baale saas daraadeed u qaatay emailkaadana waa kana u jeedaa marka hal jeer saa u fahantiin idinkana luqadda ayaan idinkaga dhigaa English okay aadana hadda aragtay marka waa saan kuu sheegay magacaada marka halkaana ku dhufatid sidaan uu kugu soo baxaa waxaad dalbanaysaa kaliya meesha qoranta adiga create a channel ama channel ii samey had YouTube waa leedahay laakiin channel ma lihid marka channel ii samey dhehaysaa kadib waxaad dhehaysaa get started sidaan kugu soo bixina marka waxaad dalbanaysaa adiga ama laba khiyaar ku siina magacaadii hadda isticmaalaysa Axmed Baale ma ku sii soconaysaa ama sidoo kale magac cusub ayaa samaysanaysaa marka magacaan Axmed Baale hay ahaada kaliya magaca emailka waxaan dhahaa select ama magac cusub inaan samaysto ayaan doonaa oo magaca YouTube-ka marka halkan waxaad qoraysaa magaca jeceshaha YouTube-kaada inuu noqdo aniga waxay u qoran Somali Professional marka magaca adiga meesha kugu qoran ay ku xiran tahay aad doonaysid inaad ka dhigtid marka waxaan dhahaynaa for example ahaan Somali Technology ama Somali Tech kaliya ka dhig kadib halkaan aad sax saaraysa waxaad dhahaysaa waa ogolahay waxaan isticmaalahay ama inaan akoon samaysanayo create aad dhahaynaa good nice work hadda sida ujeediin channelkaada oo dhahay Somali Tech waa samaystay ama ku samaysmay sidoo kale halkaan sawirkaada oo profile buildkaas oo kale ama profile sawirka oo profilekaada halkaan ay ka bedeli kartaa laakiin uma baahna in hadda bedelno hadhow aan samaynayna taas marka hoos u soo degaysaa waxaan dhahaynaa hadhow aan samaynayna good marka sidaan kugu soo baxo halkaana ku dhufanaysaa adiga wuxuu kuu soo saaraa channelkaada caadi ahaan rasmiga markuu channelkaada qof soo booqdo soo akaanaya ama soo ahaanaya waxaan ka wada hadda sawirkan halkan u jeedid waa sawirkaada caadiga meesha ku saaran sawirkan gadaal waa profile build soo kale aad bedeli kartid haddaan si toos kuu tusiyo waxaan galaynaa YouTube marka waxaan u gudbaynaa hadda channelkayga channelkayga u gudbaynaa halkan kadib waxaan dhahaynaa ama kadib soo aragtay halkan meesha ay saaran tahay sawirkayga waa meesha halkan adiga sawir kuu saarnayn iyo soo kale sawirka background aan ka wada waa sawirkan gadaal saaran ama sawir soo dhaweyn ama sawirkaada ama group wax saaranaysa halkan sawirka adiga oo qurxinayo page-kaadi hadda dib u laabano waxaa ku soo baxay YouTube-ka caadiga ah haddaan halkan aan taabto aan dhaho channelkayga channelkaas sidaan u soo baxay video kugu jir ma lahan sidoo kale playlist wax kugu jir ma laha haddaad doonaysid inaad video aad soo gelisidne halkan kaliya ku dhufanaysaa upload video ama halkan meeshaan kor aad ku dhufanaysaa kadib waxaad dalbanaysaa inaad video aad soo gelisid marka sawirka hadda aan bedelayna ama sawirkaan aan bedelaynaa halkaan ku dhufo ama xataa sawirka caada ugu dhufan kartaa good waxaan bedelaynaa hadda waa sawirkaadi oo profile building ama iyo sawirka gadaal markaa sawirka bedelaysid labadaba waxaad taabanaysaa kaliya meeshaan calaamadda qalinka uu saaran yahay kadib waxaad dhahaysaa bedel good marka hadda sawirka haddaa bedelaysid halkaana taabanaysaa meesha kaamirada ay ku qoran tahay ayaa geli riixaysaa marka waa laba khiyaara ku furan in aad ku dhufatid halkaan oo computerkaada sawirka soo saartid ama hadduu sawir kugu jiro gmailka inaad adiga isticmaashid hadda sawirna gmail nooguma jiro marka sawirkayga wuxuu yaalaa computerkayga dul yaalaa ama computerkayga ku jira inaan ka soo qaatara marka waxaan dhahaa sawir ii soo qaat halkee computerkayga halkaana ku dhufanaysaa kadib meesha computerkaada yaala ama sawirka uu ku yaala aad ka jirinaysaa marka waxaasna haddan u baahan anaga sawirkeena waxaan dhahaynaa meeluu ii yaalaan aqaana aniga oo ah desktopka for example ahaan sawir halkaan email waxaan dhahaynaa okay sawiro gal sawirkan for example ahaan saaraynaa sawirkan waa soo jiidaysaa keli waxay keenaysaa browserka halkaana ku daynay marka soo jeedin sawirka haduu qaato marka adiga waa habeenaysaa sideerta inuu kusoo baxo ma weynaana ma yaraana cabirkeeda inaad ka dhigtid waxaan dhahaynaa marka aniga hagaagsado waxaan dhahaa sawirkan iga dhig sawirka profilekayga
marka hadda adiga sawir profile ayaa samaysatay ama sawirka adiga oo profilekaada waa samaystay magacaan soo kale waa halkan marka haddaan kusoo laabana meesha aan dhahno refresh waxaa arkaysaa inuu sawirkii isbedelay marka hadda waxaan u baahanahay sawirkan backgroundka oo gadaal oo ah kani in aan bedelno sidoo kale halkaana taawanaynaa waxaan ku dhufanaynaa channelkan ii bedel ama sawirka ii bedel sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad sawir computerkaada kasoo qaadatid hadduu computer sawir kugu jiro ama in hadday kugu jiraan emailka ama sawirada adiga hore uu soo qaaday sawirkan oo kale inaad saaratid ama sidoo kale waxaad dhihi kartaa sawirada halkan ku jiro aad ka dooran kartaa marka mar walba isku ilaali markaa sawirka halkan aad bedelaysid inaad soo saartid sawir weyn oo cabirkiisa oo halkan cabirkiisa uu weynaado saa ujeedid haddaa barnaamij photoshop isticmaalaysid way fiican tahay cabir halkan la eg oo ku filan oo adiga hagaagsan qurxan ayaa samaysan kartaa marka haddana intaas dhan uma sii gudbayno halkan aan sawirka dooranayna waxaan dhahaynaa waxaan u baahanahay inaan sawirkan aan saaro computer telephone tv sidaan kusoo baxaa okay select wuu save gareeyey marka hadda sida ujeedid channel YouTube ayaa samaysatay channelkaada YouTube diyaaro ku yahay subscribe qof kuu saaray ma lahan sawirkaadu kuu saaran yahay wax walba waa ujeedaa marka haddaan aan halkan adiga isku arkaysid qof cusub hadduu channelkayga soo booqdo siduu arkaa qofka cusub channelkaada soo booqdo sidaan u arkaa channelkaada subscribe uu saari karaa iyo sidoo kale videoda kugu jiro videoga uu daawan karaa hadduu wax kugu jiro sidaan hore u sheegnay good marka hadda YouTube waa ka dhammaanay channel YouTube sidoo kale waa sameynay waxaan u baahanahay in aan soo dejino barnaamijka oo videoga aan soo gelin doono insha Allah YouTube aan ku hagaajinayna aan ku jarjarayna marka barnaamijka waxaan ku qoraa kaliya Google Lightworks marka magacaan ku qoro waxaan usoo digaa hoos sida ujeeda meesha qoran tahay www.lightworks.com page badanaa jira adiga oo ku soo baxaya laakiin adiga isku day inaad kana ka dooratid marka asigaan ku dhufanaa marka linkii ku dhufid insha Allah sidaan ayuu kugu soo baxa marka adiga waxaad dalbanaysaa meesha qoran tahay download waxaa soo dejisan kartaa for Windows for Linux for Mac OS marka computerka aad isticmaalay systemka ku jiro ayuu ku xiran yahay marka hadda isticmaalaysa computer Apple ama sharikada Apple ay samaysay waxaa soo degsanaysaa Mac OS ama sidoo kale Linux uu kugu degsan yahay hadduu computerka yahay computer Windows ku shaqeynayana kan ayaa soo degsanaysaa marka computerka hadda anaga wuxuu ku shaqeeyaa systemka Windows marka asigaan soo dejinayna waxaan dhahaynaa download kadib waxaan dalbanaynaa Lightworks for Windows marka ku dhufto waxa ku soo baxayo page-kan wuxuu ka dalbanaa maxaad doonaysaa inaad soo dejisid 32 bit ama 46 bit 32 bit waxay ku xiran tahay computerkaada muxuu yahay 32 bit ma yahay systemkiisa ama 46 bit aan ku fududeeyo hadduu computerkaada dareemaysa inuu culus yahay oo RAM-kiisa uu yar yahay 4 GB uu yar yahay soo degso 32 bit hadduu computerkaada yahay computer cusub aad soo iibsatay oo sidoo kale 46 bit ama RAM-kiisa uu gaaraya 8 4 hadduu adiga 4 uu kooban yahay RAM-kiisa uu fiican yahay soo degso 46 bit waxaan ku dhufanaa aniga 46 aan ku dhufanaa hadda in yara sugaysaa ilaa barnaamijka kaga soo dego barnaamijkeena uu noo soo degay marka insha Allah muuqaalka soo socdo waxaan isbaran doonaa barnaamijkan aan soo dejinay oo kani ah sideen computerkayga ugu shubaa iyo sidoo kale sideen u isticmaalaa on video ugu jaraa ugu hagaajiya waxaas insha Allah muuqaalka soo socdo ayaan isla arki doonaa cashirkeena maanta meesha ayuu noo akaa marka insha Allah muuqaalka ku xig wuxuu noqon doonaa sidee video u hagaajinaysaa saan jecelahay qof walba video sida uu yaqaan telefoonkaada furaysa ama kaamirada furaysa video aad duubtay marka waxa u baahan tahay inaad video wax u baahneen aad ka jartid wax kale aad ku dartid muusiga saartid waxaas insha Allah waxaan ku baran doonaa muuqaalka oo soo socdo marka muuqaalka soo socdo sidoo kale barnaamij ayaan soo dejinaynaa oo free ah muuqaalada ku jaraysid ama ku hagaajinaysid marka waa muuqaal adiga ku saabsan video editing aku baranaysid insha Allah nus saac iyo wax ka yar waxaan ku bari doonaa insha Allah asaasiyaadka ama aas-aaska video editing marka insha Allah waa inoo muuqaal cusub walaalkiin Axmed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh